kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii toddobaadlaha oo maxaad soo joogtay oo ay toddobaadkan marti ugu yihiin Rashiid Maxamuud Warsame iyo Cali Cabdi Ciise oo wax badan uga soo joogay deegaankan iyo dalkan. marka hore Cali Cabdi Ciise iyo Rashiid waxaan leenahay barnaamijka soo dhawaada. bismillaahir rahmaanir rahiim. dhalinyarada ESTV iyo FM jigjiga aad iyo aad baad mahadsantihiin, gaar ahaan barnaamijkan maxaad u soo joogtay ama waxaan u soo joogay aad nagu marti qaadeen oon idinka mahadnaqaynaa. marka kale wallahi wax badan baan u soo joogay, wax badan baan u soo joogay, inkastoo dadku necab yahay anigu ma necbiye daadaydana waan sheegaye 60 baan jiro 60ka wax badan baan u soo joogay. مثلا xilligii Xayl Silaase arday baan ka ahaa magaaladan Jigjiga, maxaa wixii ka dambeeyay xilliga aan dugsi sare ku jiray Jigjiga. مثلا magaalada Jigjiga laamiga u mara Herar iyo Garab Case isku xira la isagama talaabi jirin, ama halkaa iminka dawladda hoose ku taalo bulshada taala qaybta waqooyi ee dawladda hoose wixii ka dambeeyay zero sudist iyo amista aynu naqaano. xaqiiqatan qof Soomaaliya oo suuqa hoose ka yimid qaybta koonfureed ka soo talaabay oo xaafadaha tay karayay ma jirin, mamnuuc bay ka ahayd. sidoo kale qaybta waqooyi intay ka yimaadaan dadka qowmiyadaha kale ah qaybta deganaa, haddii aaga kale Soomaalida ay yimaadaan Siraan soos tuulad iyo arad wanu isdili jiray. yani colaad iyo nacayb ay in kala dhex dhigeen guumaystayaashii xukuumadda Xayl Silaase ayaa barnaamijka ugu wacnayd. xeradan aynu maanta xukuumaddu degan tahay xero ciidan soona militare Garab Case Shacali Guure, halkaa imika Air Force-ga loo yaqaanay magaalada geesteeda galbeed jidka jinacsan iyo ka harar u dhaxeeya dhulkani wada military buu ahaa. ma jirin xorriyad waxbarasho af Soomaali wax lagu bartay iska daayay xorriyad aynu ku helo ardayga Soomaaliga ah ee guuleysta ee imtixaanka heer sare ka gala haba yaraatee muu lahayn xorriyad uu jaamacad ku helo. shaqaalaha dawladda u shaqeeya ee mushaharka ka qaata nimayow markay ugu badato in yaroo ugaasiya iyo salaadiina marka laga reebo 20 qof kama badnayn dawladda dhan ee Itoobiya. Itoobiyaanimadeenu sidaasay u ahayd mid aad u xaqiran, haddii alla ku roon yahay. markaanu dalku soo noqonay Soomaaliyana burburtay waxaanu ku soo noqonay dal cawlan aad iyo aad u cawlan dadkiisa iyo dalku uu cawlan yahay oo xiriyo military uuna ka jiraan wax kale oo ka jira aanu jirin. taawon soo joogay waxa bedelay isbedelkan weyn ee quruxda leh. waxaanu soo joogay oo aanu ku soo gaadhnay dal uu soo ragaadiyay nidaam hal diin leh hal af leh ayuunba Itoobiya ka jiray. waxaanu soo joognay wadada Addis Ababa ka timaada ilaa Goday waan marar badan shaqo u maray oo rafa Addis Ababa iyo Jigjiga oo laga dhaxo Jigjiga iyo Goday oo iyaduna rafaad kala ah. waxa bedelina waynu arkaynaa. waxaanu soo joogay iyadoo hal secondary school uu deegaankeena oo dhami uu leeyahay iyo hal xabsi. mana dadka waa la leen jiray dabcan, marka hal xabsi xabsigaasina Jigjiga uu ku yeelay Goday iyo Dhagax Buur iyo Qabri Bayax iyo Qabri Dahar iyo iyadoo waa la dilayay. maxkamadna kama jirin waxba kama jirinba institutionska dawladda ka military gumba ka jiray iyo yaro wax astidaadir la yiraahdo maamula.
waxaan xusuusanahay jigjiga wadadan imika laamigan weyn ee Harar iyo Goday wixii koonfur ka xiga bay Soomaalidu deganeed marka laga reebo wax yar oo jaraaqata la yiraahdo marka ninka Soomaaliga wadada haduu ka talaabo aygaaba ku ceeyayba ayda xataa urtay kala taqinay ayda ku cunaysayba maantana say tahay waydan aragtaan waxa jiray dhinaca maamulka jigjigoode marka magaalo lagu tilmaamayay laakiin wax magaalo aan ahayn ayaa wax maamul dawlad hoose ama council oo igba ka jiray maantana afar magaalo ayaynu maraynaa muddo yar gudaheed waxa jiray hal secondary school maantana higher institutions of education ama hay'adaha sare waxbarashada waynu arkaynaa ilaa heer jaamacad ayaynu leenahay arrimaha dhacay ee aanu soo taagnaa arday aanu iskuul ahayn oo dugsiga sare ka wada dhigan jiray oo haddii Allah u naxariistay la oran jiray ina Maxamed Shariif barnaamij Soomaaliya laga sii deyn jiray oo ka baran raadiyaha af Soomaaliga la oran jiray isagoo hoos u dhageysanaya ayaa la soo jaajuusay waxba balaaya loo halkaas oo balaayo hayaa oo inankii aakhirkii waa lagu toogtay يعني برنامج رادية اللي قد يستوى في صوماليا مركي وجوه رئيسي كسب بحجري بوها اللي قاعد سكندري أنت بيبان كلية ضعفات كان أيام كوتشري محن كل هذا جيمة إن كان سكوار ديوان وهين ولا توكتي وحلو بهاي إلا حسوسته مركينو لنا محل بسوت توكتي horta barnaamijku intan ka balaaran man aad ugu rayn lahaa wax badan man ka sheekayn kar lahayn dhibaato badan oo soo martay baan ka warbixin lahayn oo deegaankeena Soomaalida la soo mariyay magaalada Jigjiga man tusaale u soo qaatay dhammaan magaalooyinka deegaankeenu ka kooban yahay xiriyaha military iyo dhibaatada iyo cadaadiska iyo xorriyad la'aanta iyo waxbarasho la'aantaas ayuu ah taasi waa xilligii Xayl Islaasay waxaanu soo joogay barnaamijka nin iga aqli badan oo iga cilmi badan baan qayb badan u dhaafayaa intii dawladii EPRDF dhalatay saaxiibka Cali Cabdi Ciise u dhaafayaa waxaan u soo noqonayaa maanta iyo sida aynu nahay markaan dawladii Xayl Islaasay u fiirsado waxyaabihii jireen u soo joogay dargigii wixii jiray aan u soo joogay aan dib u jaleeco runtii dhammaan wax laga murugoodo ayaa wixii la soo maray aan u soo joognay oo dhinac walba leh maamulka markii aanu la wareegnay iyadoo xisaab qabiil aanu ku bilaabanay ayaa xisaabtii qabiilkiiba markaa dawlad dhisa leeydi iyadoo dawladnimo si loo dhiso iyo si loo maamulo midna fakir wax ka haysta uu yar yahay nidaamyo jiray in loo soo shaqeynay ayaanu dawladnimadii madaxweyne iyo maamul iyo wax dooranay dabeetana qolo wala gaariga ka haysta gaarigan gidaar walba waanu ku qaadnay gidaar walba gaarigii waanu ku qaadnay ilaa heer dadkan iyo dalkan aynu ka sheekeynayno ee waxba ka jirin baarlamaanka iyagii uu go'aamiyay aftiha laga qaado dadka bal xageen geyn leena hadii afti laga qaado oo Itoobiya abay tiraahdo go'a waxaan xusuustaa markii aanu dastuurka ka doodaynay waxaan ku jiray baarlamaankii dastuurka ka doodayay markii aanu dastuurka ka doodaynay ayaa 23 qof oo Soomaaliyan ahayn oo ururo kala duwana marka dastuurku isagoo draafa ayuu diyaarsanaa dabeeto markii article 39 waa article-ka qowmiyad waliba maaragtay xaq u leedahay inay ismaamusho in ma garanaysaa ilaa heer inay ayaheeda ka tashato oo ay goodo haday doonto article-ka qoraya intaanaan ka doodin break time-kii ayaanu Soomaali ahaan isugu nimid dabeetana inuu dhintay baa la ii sheegay Cabdulqaadir Allah u naxariisto ayaa wuxuu yiri
qodobkan article 39 nimanka ruwaad bay noo dhigayaane u malayn maayo in dastuurka lagu darayo markaasaan ku Cabdulqaadir waa lagu darayaa qowmiyad walba xaqa gaar baa loo siinaya waa waxay haadhigu soo halgantay anigu mid kale ayaan oran doonaa ha lagu daro dastuurka oo ka maqan tan haddii qowmiyad walba haddii xaqeedii gaar loo siiyay individual state haddii la siiyay qowmiyadahana mid la siiyo midda la siinaya waa maxay qowmiyaduhuna waxay xaq u leeyihiin in ay iska jaraan qowmiyadda ay hayn kari waayaan Cabdulqaadir war wayna jarayaan ay naga daan waa xusuus marka taana sidaas waan u soo joogay runtii markii la soo galay wadanka ay haadhig soo gashay inaga xaggeena markiiba dhaqdhaqaaq ba ka bilaabmay laba fikradood oo fikirka war haadhig oo le maaragtay dastuur baa la samayn doonaa qowmiyad waliba oo ismaamuli nidaamkii dhergiga waynu ka guuraynaa waxaan u guuraynaa from dictatorship to democracy move kaasaynu ku dhaqaaqaynaa waqtigiisu u baahan yahay geedigaas la gelayaa dad inaga mid waxay laayeen war nimankan lama aamini karo marka nidaamkii hore axmaaradii dhulka xukumaysay baa dadka madaxa kaga wada jiray la yaabna ma lahayn dadku war nimankan kor ka yimid lama aamini karo fakaraba dad qabeen fikirkana wuxuu lahaa war aan aamino mar haday leeyihiin sidan haddii wixii hore uu soo noqdana dibadba u bixi maynay magaalooyinkeenu ka dagaalamayna marka labada fikradood baa dabcan hardamay oo isbarbar socday tiina maanta waxa la xaqiijiyay in la saamini karo wax la wada yeelan karo dadkii dalkeena uu ku dhismayo wada jirka taana waan soo joogay maanta kuwa ninka xasuustay arrimaha ninka xasuustay wuxuu uga soo joogay markuu maanta deegaankeena eego khaasatan ilaa 4-5 sano imka u dambeysay heerka deegaankeenu marayo warniyo magaalada Jigjiga laami ma lahayn waad ogeydeen hal wado oo toos uga baxda ama wado xaafadaha gudaheeda oo laami leh maynaan lahayn magaalooyinka kale goboladana hadalkood badaa iyagana magaalo madax waxa uu ahayd marka deegaanka Soomaalida la yiraahdo Jigjiga uu ahayd habay yaraatee wax laami ma jirin dakhli aynu lahayn oo xorriyad u lahayn oo aynu urursanaynin ma jirin mashaariic horumarineed oo aynu inagu diyaar gareysanaynin ma jirin iniyo intaba waynu helay markii aan ururada qabaylka ahayn qabiilka qabiilku cid waliba way ku jirtaa qabiilku fakar maaha kii reerkiina ahaa shabaabka ahaa kii itixaadka ahaa kii dhargiga ahaa kii Soomaaliyeed waa lagu wada jiraa dabeetana qabiilkii dad bu soo doortay dabeetana baarlamaan mixira oo kala wada ujeeda oo kala fikir duwan ayaanu noqonay labada fikradood ee waaweyn ee aan tilmaamayna dabcan labada ugu waaweyn oo baahayd iyagu intaaba kuwo ajendaha wax ka duwan lihina way jireen oo waxaas oo dhan baanu ka koobneen marka kaasi jawreerkii ugu weynaa ee kililka soo qabsaday taasay ahayd tiina waxay soo socotaba waxaan isleeyahay waxaad iyana u soo joogtay iyada oo laga baxay xaqiiqatan dawladda maanta jirtay EPRDF markii ay dalka qabsatay sanadkii 1983 hal urur oo EPRDF la yiraahdo ayuunba dalka qabsaday ururo yaryar oo mucaaradahoo xagga Central Ethiopia u badan way iska jireen laakiin marnaba way tamarin waayeen sababtoo ah barnaamijkooda siyaasadeed baa ahaa mid khariban oo ama ay xukuumad qowmiyad u gaar ku doonayaan ama mid diini ay ku doonayaan
wax dhibaato ah oo xaggooda Etoobiyada dhexe ka jiray runtii aad buu u yaraa mushkiladda inaga inagu dhacday waxay noqotay 16 xisbi siyaasi baan u kala baxnay markiiba mid waliba qabiil buu ku salaysnaa xildhibaanada laga soo dooran jiray kuwa xisbiga qabiilka u taagan ku salaysan bay ahayd taasi waxa ummadeena u horseeday runtii dib u dhaca maanta ka muuqda deegaankeena hadda 5 sano ee u dambeysay wixii ku horeeyay waad wada xasuusantiin xorriyad baynaan ku mari kari jirin dhulka meel walba nabadiid baa taagnaa haddii alla ku jecel yahay inagii baa iswada reebnay inagii baa isla wada hadhnay inagii baa iswada cunnay nidaam qabiil baynu ka dhammaan lahayn taana waxa keenay xilligaa halkaa EPRDF ay magac qura ka qaadatay ayaynu 16 xisbi siyaasadeed u kala qaadanay inagu iyo nidaamkii qabaliga ahaa ee ay xisbiyadaas ku dhisnaayeen dee markuu xisbigii siyaasiga ahaa ee aad ka soo baxday qabiil ku dhisan yahay maxaad malaynaysaa ilmaha ka dhasha markaan ilmaha ka dhasha leeyahay xildhibaanka ka soo baxay ayuu noqonaya muxuu noqonaya mid qabiiligaa sababuu noqonaya nin waliba reerkooda u taagan taasina waxyaabaha runtii dib u dhaca iyo dibindaabyada badan dadkeena u geystay ayaa kow ka ahayd xukuumaddan maanta ee cabdi maxamed cumar hogaaminayo isbeddel xoog leh ayay samaysay waxa weeye dadka waa habar fadhida lagdinin la fudud baa layidhi waxa weeye markaanad arrin soo gelin ee dibadda ka joogto uu kula fudud yahay taariikhdu in badan bay xusi doontaa in badan ayay xusi doontaa magaalo jigjiga dee iyada lamaba sheegi karaba jigjiga iyada dee horumarka dalka ka dhacay wixii ugu weynaa bay ka qaadatay jigjiga oo hal laami leh dee waanu soo joognay dee maantana maba tirin karayo jigjiga oo hal fooq leh oo fooq dheero la yidhahdana waanu soo joogay maantana maba tirin karayno jigjiga markii imika anigu aan imanayay mar aan duqa magaalada ahaa magaalada populationkeeda ilaa 69000 baa lagu sheegayay markaa maantana waxaan isleeyahay 300 kun 400 kun way tahay magaaladoo kaliya maaha marka weliba baadiyaha lagu daro 500,000 populationkeedii wuu kordhay businesskeedii baa kordhay sidoo kale waxaan u qiyaasi karaa raashinka lagu cunayay dee inaanu bishii hal baabuur dhannayn maantana dadka elsiyada cashuur la-aanta lagu siiyey dee way badan yihiin marka wax badan waxaad ka arkay noloshu aad iyo aad iyo aad iyo aad ayay isku beddeshay horumar dhan walba leh runtii aanan qiyaasi karin waana la soo qabtay welina wuu socdaa isku xidhka gobollada iyo degmooyinka waxa weeye jigjiga halkaa wado wax wado laamiyo soo geli jirtay marka hore ma jirin maantana dee dhan walba laami baa ka soo galaa harar buu ka soo galaa dabeetana dhagax buur iyo qabri bayax ilaa goday buu u baxaa dhinacan kale wajaale oo iyaduna boordkii inoo ah wuu u baxaa kuwii kale daraasadahoogii baa socda wadadan tuli guuleed iyo jinacsan iyo iyadana aad baa loo upgrade gareeyey tan lafaciise runtii maan marin laakiin iyadana waan filayaa marka wixii la qabtay waxa kalena kulley daraasadahoogii dabcan way yaalaan marka wax weyn baa inoo qabsoomay qodob kale muhiimka waxa weeye dowladdan waxay kaga duwan tahay waanu soo joognay dowladaha iyagii xukuumaddan maanta ee cabdi maxamuud cumar annagu waqtigayga arrin aanu keeni karaynayba runtii may ahayn ama aanu higsanaynay howlihii markaa safaaradaha iyo qolyahaas inay qabtaan ahayd dowladdan way u baxday dadkii taageerayaasha u ahaa dadka nabadiidka ee qaaraanka siinayay inay ka soo qabato oo ay dowladdoodii ku soo xidho oo ay dalkoodii maal gashadaan ayay gaadhsiisay taasina waa wax aad iyo aad u weyn oo taariikhdu in badan ay xusi doonto dhinaca nabadgelyada gudaha abuuritaanka ciidanka liyu booliiska
ayaa isaguna dee wax weyn nabadgelyadii ka taray nimankii nabadiidkaa god walba ugu galay waa ta keenaysa in jigjiga iyo goday baabuurtu si freeya inay u maraan jigjiga iyo qabri bayax gudahooga baabuurta waa lagu gubayey xaadow iyo dhagax le gudahooga waanu soo joogay waa lagu gubayey meel nabadii inoomay jirin abuuritaanka ciidanka liyu booliiska ka hor marka waxaan leeyahay wax weyn ayaa muddo yar lagu qabtay taana xukuumaddan maanta jirta ayaan aad ugu ammaanayaa waanan rajaynayaa inay in badan inoo sii joogaan waxyaabihii waxaa ina soo mariyey iyo dhibaatooyinkaa aynu soo maray waxaa lagaga bogsaday xisbiga midnimada ku soo gabagaboobay ee maanta talada haya ayaan isleeyahay baa kow ka ah inaynu dhibaatooyinkaa kaga soo gudubno waxa xusid mudan runtii maanta shalay laba magaalo qabri beexiya iyo jigjiga qabri beexiya dhagax buur iyo saasuun magaalooyinka kale ku xiga nimay sumaynaan socon kari jirin si xorriyada umaynaan marayn ambalaaska wada nabadiid baa gubi jiray macal qofka buka ama qofka foolanaysa ee laga soo qaaday ee loo soo wada halkan dee dhexduu ku guban jira maanta runta marka la sheego iyadoo aan isleeyahay xisbigaa midoobay iyo xukuumadda gacanta birta ah lagu qabtay aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa war ninku markuu dhiirado ee uu ficil wadaninimo markuu qaado ee uu madax isugu tuuro niyo ilaahayna wuu caawiyey isna nafta ayuu u huray baan leehay xukuumaddaa maanta jirta isaga iyo xukuumaddiisuba mahadnaq bay inaga mudan yihiin bal laydhkan eega bal nabadgelyadan eega ciidankaa liyu booliiska ahee la aasaasay war ilaa ciidankii dowladda federaalku markuu ku kadeedmay dhulkeenna dee waxaa layidhi qodax baa lagu saaraya inamadeenii ayaa loo abaabulay oo soomaaloo dhan ka kooban nidaam qabiilna ka madax bannaan oo la hanuuniyey oo la tababaray war shalay dakhligeennu muxuu ahaa intaana hawadaa lagu kala qaybsanaya weliba wixii soo baxa dakhligeennu tuulo iyo degmo iyo meella ma ahayne magaalooyinka waaweyn oo matalan jigjigo oo kalea uunbuu ku koobnaa intaana hawadaa lagu kala qaadanayay mashaariic horumarineed iyo barnaamij lagu qabto iyo maxaanku idhahdaa waxbarasho lagu kordhiyey dee muu lahayn maanta heer qabale ayaa dugsigii sare ku yaallaa health center baa ku yaalla degmooyinkii oo dhan cusbitaallaa ku yaalla gobol aan cusbitaal lahayn ma jiro meel aan ceel biyood maanta qasabad laga cabaynin aad bay u yar tahay iyadoo arrimuhu noocaa yihiin shalay hal dugsi saraynu lahayn xilligaa qarnigaa xaylasalaaseen anugu ka sheekaynay hal dugsi sare oo jigjigu ahaa hal cusbitaal baynu lahayn oo jigjigu ahaa gobollada kale cid jirtaba may ahayn barnaamij aan aada ugu bogo ayaa waxaa ka mid a waxyaabahaan aada ugu bogo ayaa waxaa ka mid a barnaamijka hirgalay xukuumaddan maanta jirta dib u curashada ereyga la yidhaahdo muddo badan baa la isweydiinayay macnihiisa dib u curashada markii ficil lagu muujiyey ee shaqaalihii dowladda maamuladii haddii ilaahay ku jecel yahay laga dhigay kii degmada dannood laga soo doortay inuu degmada mooyaale maamuli karo shiniila kii laga soo doortay inuu gaashaamo maamuli karo kii goday laga soo doortay inuu jigjigo maamuli karo ama qabri dahar
horta arrintaasi waxay keentay shay qaaliya oo ah dadku berigii hore dee nin waliba degmada laga soo doortay unbuu maamuli jiray ama gobolka laga soo doortay unbuu maamulayay waxay keentay cuqdadii qabaa'ilnimada ku soo raagtay soomaalida ku dhex jirtay ma garanaysa qabiiliyadda ahayd qabiilka xun cunsurigaa ahayd tii bay ka saartay meesha runtii barnaamij aada u heer sareeya oo wuxuu isbaray degmooyinka dadkii kala deganaa ee deegaankeenna oo aan aqoon isu lahayn ayaa isbartay kii cuqdada kala qabay labadii cuqdada kala qabay cuqdadii way ka baxday isu soo dhawaasho iyo saaxiibtinimo iyo kalgacal shacab ayaa halkaa ka abuurmay iyo waddanka in la wada leeyahay oo hal Soomaaliya hoon aynu nahay ayaa halkaa la aaminay waxa kale oo iyadana aan aad ugu bogayaa adeegsiga webiyada intaasoo webi oo Shabeelle Daawa haddii la kuurnayo Ganaale intaasoo webi oo deegaankeena dhaxmara oo aynu lahayn oo hantideennii ahaa ilaahay inoogu deeqay ayaynan weligeenba ka faa'iidaysan jirin maantana dee bariis baa inooga baxa private sectorska webiyada dadka hareerihiisa degan iyo kuwa gobollo kale ka yimid oo ka faa'iidaysanaya markaan TV-ga ka daawado runtii farxad zaa'ida ayaan qabaa dadkuna waa igala mid xukuumaddana ammaanteeda iskale shacabkii ku garab galayna waa uu la qaybsadaa ta kale xukuumaddan waxaa cajaa'iba saaxiibkii cali baa ayaa yar xusee wax wasaaradda arrimaha dibadda uuni iska lahayd inay qabato oo si uuna inooga dib dhacsanaa yacni markuu soo dabar jarayey oo soo afjarayay haddii ala kuray nabadiidka intuu baxay waa nigi marka horena idin lahaa qodaxun baa lagu saaraa intuu baxay buu godkoodii ugu galay ilihii dhaqaaluu ka soo xidhxidhay wacyigelin iyo wada hadal buu ku soo dhammaystiray arrintaasina arrimaha guulaha waaweyn soo hooyey ayay ka mid ahayd anigan laga bilaabo jaamacad baan uga soo baxay Itoobiya haddana habeen qura damiirkaygu iyo Soomaali meel xaggaasaynu nahay mooyaan niyo nidaamka maanta jira ee Itoobiyaanimadii naguma dheehnay namana soo marin xaqiiqatan dadaal badan oo arrinta xukuumaddu u soo martay maanta ilmaha yareed aragta iyo islaanta 80 jir ama 90 jirka ee hooyada fikir madaysan oo Itoobiya ku jecel yihiin oo cugdadii kaga baxday ayaa la taagan yahay mid waliba calan baa guriga u yaala calan Itoobiya calankii Itoobiya u yaala kii dawlad deegaanka u yaala bal haddii in yar oo meel la isugu soo baxayo shir la isugu imanayo bal u fiirsada nin waliba calankiibu gacanta ku haystaa yacni wadaniyad dareen lahaansho ayaa xukuumaddan inoo abuurtay waddan kaloo walaalkeenahoo dariskeenahoo aynu si gaara isaga jeclaan jirin oo arsaaqaduba halkan inaan oolin xaggaasuuna inoo taalla aan moodi jirnay damiirkaasi horta way naga baxay xukuumaddan maanta jirta waxaan aad iyo aad haddana si lama ilaawaana weliba ugu xusaya warnimayow hidaartii kal horeyna dhaaftay xuskii 8aad buu ahaa miya halkaa lagu qabtay xuskii halkaa lagu qabtay qof Itoobiyada kala ama qof Itoobiyaana ama Soomaalideenna lafteenna inta ugu badan nin aaminsanaa barnaamij intaa leeg ayaa kililkeena lagu qaban karaya oo hirgelaya oo ammaankiisu sidaa u sugnaanaya horta nina kuma seexan waxyaabaha aan sida gaarka in lagu xuso aan u jecelahay ninku wuxuu qabtay lagama masuugo
in runta laga sheega wanaagsan arrimaha lama ilaawaanka taasaa ka mida waa taariikh qaaliya oo in la xuso mudan oo lagu abaalmariyo mudan baan leh waxyaabahan kaga noqonaya waa inaha qodob haddii aan isiraahdo waa lagama maarmaan calankeena federalismka ah ee Ethiopia astaanta bartan kaga taala kumay ooli jirin calan qowmiyadda maxaaradu iska lahayd ayuu ahaa saddexda akhtarka iyo yalowga iyo casaanku boqortooyadii Haile Selassie iska lahayd oo familiar ah wax la wada leeyahay muu ahayn waxaan aad iyo taariikhda ugu xusayaa Male Zenawi ra'iisul wasaarihii dhawaanta geeriyooday ayaa wuxuu u xil saaray guddi waa la saaray guddiya loo kala magacaabay guddigii waxa gudoomiye looga dhigay ilaahay mahadii Dr. Cabdilmajiid Xuseen Allahu naxariiste Ali Cabdi Ciise rag nooca aan talo Dr. Maxamed Sarhayo ah kii kale ayaan Allahu naxariiste isagana guddigii loo xil saaray oo gudoomiye looga dhigay Cabdilmajiid ayaa arintaas laga soo munaaqashooday in calaamad lagaga bedelayo noociisii hore in lagu dhigo ayuu guddigii soo jeediyay ma la soo ahaa madaxweynaha markaa oo arinta aad ugu bogay ayaa wuxuu yidhi aniga shacabkaygu ma yeelayaan oo way la qabaan fikirka Soomaalida way laba deegaan oo dhibaatada ugu weyn soo martay baynu ahayn isku mabda baynu ahayn xildhibaanadii federaalka ee xilligaa jiray marka qofku haddii uu hawl adag soo qabto in la xuso taariikhdiisa la xuso ayaa wanaagsan marka taas intaasaan kaga daraya waa mahadsantiin waxaan garanayaa qiirada aynu hayno maanta webiga biyo xidheenka webiga Abaay adduunka intaan weligeedba dee nina ma filaynin waa la bilaabay halyeygii Male Zenawi geeriyooday baa bilaabay wuu dhiiraday sida Cabdi Maxamuud Cumar ugu dhiiraday hidaar inuu ka hirgeliyo halkaa inta qowmiyadooda Ethiopia ku nool halkaa la isugu keen ayuu isna ugu dhiiraday si kasii culus ugu dhiiradayoo ilaahayna wuu ka aqbalay ummadna wuu u helay dareenkii lahaansho shalay niman xaqiran baynu ahay maanta dareenka lahaansho ee aynu u qabno Soomaali ahaan biyo xidheenka Abaay daani ciyaalkaygu habeen walba lacag baan moobilka ka shubnaa markaan ugu yarnahay waxaan ku raahdaa dadkuna dawaad aragteen maalintii dhaweeda shirkii u dambeeyay halka hoolka sayidka lagu qabtay 2 milyan 3 milyan 4 milyan 5 milyan dad baa bixiyay awal wabaynaan quuri jiray wadanka maxaan ku leeyahay inuu oran jiray inaynu leenahay ayaa maanta la aaminay waxaan isleeyahay wadaniyada aynu imku jeclaanay xukuumadii horena soo maray anigu kamid baan ahaa baarlamaanadii saaxiibkii Ali Cabdi kamid buu ahaa kuwii dastuurkan sixiyay baanu ahay haddana heerka maanaan gaarsiisneen oo maanaan dareenka lahaansho ee noocaasi naguma jirin marka waxaan leeyahay horta xukuumadda waxaan u rajaynayaa in dadaal badan ayay soo mareen weliba inay sii xoojiyaan sidii loo dhammaystiri lahaa ayaan ku boorinayaa amniga in halkaa laga sii wado ayaan ku dhiirigelinayaa dadweynahana waxaan leeyahay warnimayo bal aynu la shaqayno kuwii hore annaga xilligayagii madaxweynayaashu 7 bilood 8 bilood 9 bilood unbay jiri jireen markiiba waa la casili jiray waxqabadku sidan uu ka sii ballaaran doonaa aynu garab iyo gaashaan u noqono xukuumadda
ayaan leeyahay shacabkan ku dhiirigelinayaa taana dee aad baad mahadsantihiin daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii toddobaadlaha ee maxaa soo joogtay toddobaadkan martii ugu ahaayeen rashiid maxamuud warsame iyo cali cabdi ciise oon aad uga mahad celinay fursadda qaaliga ayna siiyeen dhinaca duubista waxaa gacaniga siiyey saaxiibkay maxamed xasan faarax dhameeye duubis habayntu waa Ilyas Ibraahin annagoo isku duuban dhamaantii waxaan leeyahay inta barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نبديت كاللقاء كجل الميسيي وارد كل اليمين نبديت كاللقاء كجل الميسيي لقاها دحدوديو لو يذاك دادعي اللقي يا بابور لبدا ما كرات سدي ديبولا بالشوقون صوليو بولسما يبحث طرقيقيو صوليو بولسما